nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebel u dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaay iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go-ay innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegey caalamka samadoo dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ka inoo sheegee lahaa maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi alladaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso ood iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fainnahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay
marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu Allahu alladhina aamanu bilqawli athabit fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah wa yawma yaqumu al-ashhad ilaahay tabaaraka wa ta'ala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshin doono walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa ku muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jirhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min hada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daahiyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daahiyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax kuu muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaaad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan uu dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu li aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galobuu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan
ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer Djiboutina waxay yidhahdaan letreedkii baan ku noolahay letreedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليس شفاء الله ما السعطو شفاء حق إلهي بكتم أداع دكان كاقية مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكائمنا يا وأين أدقرت ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبريده متيستي وإلهي ويان كرجها متيستي وإلهي ويان كعبسده متيستي وإلهي ويان كليغي رجي كليغي كعبسو كليغي بريو بايداده كليغي u sheego rabbigay waa allah diintayduna al-islaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man ahabba lillaah wa abghada lillaah wa a'ta lillaah wa mana'a lillaah faqad istakmala al-iimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xagga ay joogaan gaaladuna xagga ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhaco yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadha ay soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lilaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ka daawadee baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay maydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yare imika aan haysaneen moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xurulcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt
وأهل الجنة لا ينامون بالنبي قول عليه الصلاة والسلام جيرد دمشدو هرددو وجيرد ولا شد أهل الجنة جنة حتى يقولون ما صيحنا يا أبو رسولك يدي الدنيا مالنتين والفوفي ومعاش كسب حلال كسب شقيسن واد عباديسن واد سود دالي هبينكي بعد يرسيحن سدالك لغاغا بيهيو أهل الجنة محين لا سيحنين waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannahu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hordhigaya marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورة أفوفينا با إلهي إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونان لأن حق إلهي والله سأرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي حي وما حيب لا يا هرددي نغا سو كعيي وان جيفني وان هردني هردده maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي آية الليل آية النهار noloshan adduunyada aan ku noolahay waa maalin iyo habeen maalintiina waad foofaysaa habeenkiina waad nasanaysaa waad seexanaysaa qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan sabihatuha yawm almahshar waa barigeeguna waa maalinka qiyaamaha weeyaan يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدويدا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي قنوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمنكينا beerbeeraha jannada kamid ah looga dhigaya gaalkiina waxa looga dhigaya godgododka naarta kamid ah looga dhigaya nina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليو بمايان مالك قيامها مركي صوبحان حسرد الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي يقول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد انت اسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إله وحان كما هدنا نحدنتي مرقتي أنك النقاقاذي ربي قي واكي دافتان كبنا إيه شكورك هاويان إيه أفعاشا وناكساني أدون كل ما درالك كغن نقضي ويان لأنه يصوبحيان يوم القيامة مالين تسرجوغا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka warramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin kaliya wa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yawma ilaahay tabaaraka wa ta'ala yawmkaasina quraanka ilaahay noogu sheegay waa 50 sanadood ibn abbas radiyallahu anhuma مفسركي قرآنك وحو كفسروا يدي 40 سنة وعلى جوغي 10 سنة حسابتها كل ماني دون تبو يدي 40 سنة ويا سيد الله تاغنان دونا 10 سنة حسابتها كل مان دون لنا عربي ورير بادية ايا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك ايا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يدي نجونا ورب الكعبة كعبة ربك ايا كو دارتي وان بدبادني بودي وان نبد قلي بودي مرقا ابو النبي يقول سونغو سيادو كن نبد قشي بو كيدي بلي شيك وعد وا كريم إلهي وا كريم هدو دون اسكا كايا عفين بودي معيد با سكا قبسانيسا بو يدي وا كريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك ماذا مجرو هدو جران أبو رسول كل أي حي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عيد وكلا فعلين يسا مجرته لغة عربية الله واضح الله يعني حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي قولي تمر جيح تمر انك انا هلين بو نبي يقول هذا الكوناكسن هكو هادلو كلمه وناكسن كو هادل سبحان الله وكلمه وناكسن الحمد لله وكلمه وناكسن امر بالمعروف وكلمه وناكسن ذكرك وكلمه وناكسن استغفرت وكلمه وناكسن لا اله الا الله وكلمه وناكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك ادو شيغتا وكلمه وناكسن منكركود مده كريبتانا وكلمه وناكسن كلمه الطيبه صدق ابو نبي يقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتري مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيتري يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ذاتك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو البباردي سيبا كتا الله دواسدين لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس مال يسدح سعونيا هاوال يسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك عكس عدم مالنتاس من نمبا ما قبضبا ما نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قل همي قام مجربوا لي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ما ايغين markaas lagu yiri murugtan badan waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegayaa al mawtu fi unuqi geeridii baa qoorta ii suran wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyaamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا واجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقول سمعين دوننا كما ورغبي بود أنكو انت سو مرحلة نيكا أي سوغيسو إساقو هادو قصلي حق قصلي بويري أنو تايدا كورما يا بوري انت نولا هاي
oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi. maanta waa adduunyo, berritoola waa camalkaagaad la dhaadhacaysaa. maxaad wadataa? maxaan wataa anigu maanta? almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nabigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah, maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi. man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood. markaa buu nebigu yidhi caaisha, qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigi buu yidhi. inteen tukanay salaaddii maqrib 3 daqiiqo, 12 daqiiqo, 13 daqiiqo. muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa. hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eegaa. dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eegaa. meeshuu marayo aakhiraduu eegayaa. meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa? hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole, mise waa hadal aakhiradayda aan ku badbaadaayo? dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradayda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa, mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay? mu'minku uu xisaabtamaya. muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecee ku soo caabuday salaadaa yaree faradka inta uu tukanayey in la eg baa banka qiyaama looga dhigaya. dadkii ilaahay yaqaanay daraar iyo habeen aakhirada hortaalla iyaka. aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa? noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa? waxaad doonta ku hadli kari maysid, waxaad doonta eegi kari maysid, waxaad doonta cuni kari maysid, sidaad doonta u noolaan kari maysid. waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaantao dhan kaa joojinaya, wanaag o dhanna kuu diraaya. dareenkaasaa qofka qabanaya. qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaas. dareenkaasi waa iimaan weeyaan. iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee, ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen. nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay, aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay. waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix. waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix. maalin maalmaha ka mida ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray. wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mida aqal yaroo cariishee markaa ay dhisayeen. markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan? waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa. markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi. saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan. malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi, foonintii buu qaatay, lugihiina uu kala fidiyey. markaasuu sidaa u haystaa. idan ayuu sugayaa. idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo. markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg? markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda. wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo, markuu jannada kala hadlaayo, markuu naarta kala hadlaayo, markuu qiyaamada kala hadlaayo, dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan. innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane. lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu. ina alquluuba la tasda kamaa yasda'u alxadiidu idaa asaabahu almaa.
birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu qalbiga bini aadamkuna daxal buu yeeshaa maxaa qalbiga daxalaynaya waxaanaad eegaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbiguu saamaynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatlqalbi bay culammadu yidhahdaan waxaad eegto qalbiguu galaa waxaad ku hadasho qalbiguu galaa waxaad ka fikirto qalbiguu galaa waxaad dhegaysato qalbiguu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culammadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheegsheego la xasuusto laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin ya qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajidooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayey sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiyey buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada innamaa buniyat almasaajidu lima buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weynaynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynee kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari iraac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo way soo baxayeen haddana maalin kaluu yidhi ina mari iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayloo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bna cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buuhi halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd markaa ibnu cumar baa ku yidhi waryaa kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan 100 qof baan u ducaynaynaa 100kaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa 100ka awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteenu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa
boqol qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhergayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birtaa arsaaqadda kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu yidhi arsaaqaddu ay kuu furmiyeen meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa yaa may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiro aan ku dhargno ku liibaanno marka noloshan adduunyada intaan haysanno waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinaha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasno dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iska le iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intaan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaadda zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna mu odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale 3 nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad
markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasee dee annakaa qaadanayna dee haddaad qaadataan i raaci maysana waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahidu ha nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin gallo waa lanaga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sida isku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah cuثmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel la yidhaah oo cuثmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciintaee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyaday la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu dhi amiirkii mu'miniinta cuثmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may
u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe ixoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogtoon bay doonaysaa hayga tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakharada iyana kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebigaa ii kaa soo diray buu yidhi sal alla alay sl oo yidhi cusmaan u tego waxaad ku tidhaahdaa waxau nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacagu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhana way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka horeba macsiya lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku dhaqaalihiisa xor uma ah tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washiraa culammada kaaleyo weydii cumar bnu khataab suuqa madiina intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin masjidka nebiga intuu tegey cilma albayci waashiraa culammada ka soo bartay mooyaane
innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo China iyo Thailand baa laga wada duulay habrihii baa socdo kula China u socotaa xageen u soconnaa war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadano oo diinteenna ha baranno oo diinteenna ha ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabr buu nebigu yidhi waa zamanuu nebi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta idhaahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhaahda maanta sunnaha nebiga ku far adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahada taama guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonnaa yaa dhegaysto wanaagsan waxa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa la inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyaddii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahaddiisu ummadda wax ku taray Usmaan bin Affan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiya waa ka cudur daartay Umar wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba buu yiri Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag Khalid bin Walid geesinimadii raganimadu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yiri ilaahayna dambi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaad raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inaguna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyey in sha allahu tacaala
wixii wanaag iyo khayr soo dhex marayna ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysa anu marti kumihiya waan deganahay ya deganahay maasha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allah